dowladaha Jubbaland iyo Puntland ee xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shir socday 2 maalmood 25 ilaa 26 bishan August 2020 waxay ku yeesheen magaalada Garowe ee caasimadda Puntland madaxweynayaasha labada dowladood mudane Axmed Maxamed Islaan iyo mudane Saciid Cabdullaahi Deni ayaa shirkooda uga wada hadlay xaaladda siyaasadeed iyo amniga ee dalka Soomaaliya. madaxweynayaashu waxay kaloo ka wada hadleen iskaashiga ka dhaxeeya labada dowladood ee Puntland iyo Jubbaland. muddadii ay socdeen wada hadallada waxa qabsoomay shirar gooni ah oo diiradda lagu saaray arrimaha masiiriga ah ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka 2020-2021. waxaa dhinac socday shirar farsamo oo dhex marayay guddiyo labada dhinac ka kala socday kana koobnaa wasiiro, xildhibaano iyo la taliyayaal sare ayaa waxaa lagu falanqeeyay arrimaha farsamo ee qabsoomidda doorashada dalka 2020-2021. madaxweynayaasha ayaa dhankooda waxay shirar wada tashi ah la yeesheen madaxweyne ku-xigeenka Puntland, guddoonka baarlamaanka Puntland, madaxweynayaashii hore ee Puntland, xubno ka socda labada aqal ee federaalka, siyaasiyiin rugcada ah iyo madax ka tirsan ururada bulshada rayidka ah. madaxweynayaasha ayaa sidoo kale intii ay socdeen shirka Garowe waxay xiriir dhanka telefoonka la yeesheen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah, iyadoo laga wada hadlay sidii xal midaysan loogu heli lahaa arrimaha siyaasadeed ee dalka, taas oo ay ka dhalatay in shir wada tashi ah la isugu yimaado caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho si loo gaaro xal siyaasadeed oo la isku waafaqsan yahay ee qabsoomidda doorashada dalka 2020-2021. dowladaha Jubbaland iyo Puntland ayaa isku raacay aragti siyaasadeed iyo mabaadi' asaasi ah oo gundhig u noqon kara hirgelinta doorasho la fulin karo kuna dhacda waqtigeedii si looga fogaado xasilooni darro siyaasadeed iyo khalkhal amni. dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxay ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaan in laga wada qayb qaato sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho, lana ilaaliyo wadajirka, amniga iyo xasiloonida dalka. dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxay uga mahad celinayaan beesha caalamka dadaalka ay ugu jiraan in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho waqtigeedii ku dhacda loona dhan yahay. wabillahi tawfiiq.